السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. Maanta waxaan qaadanaynaa sheekadii aan soo sheegnay inaan casharkii ugu dambeeyay aniga waa ku xijirana casharka ee new words ka ah. Sheekada waxaan soo sheegnay sidoo kale inay tahay magaceedu The Dog Spell, gambaleelkii A. Okay, soo jeediyaha sheekadan waxaa la yiraahdaa ama casharada ka baxay Hikachi waxaa la yiraahdaa Muxyidiin Cabdi Cali. Bal aan sheekada u guda galno. Okay, John's dog, ninkii la John eegiisu waxa la yiri was a bad dog wuxuu ahaa ay xun. He bit wuxuu qaniinaa people dadka frequently inta badan. John ninkii la had a great concern waxa uu walwal aad ah ka qabay about this arrintan. It was not an appropriate way ma ahayn hab sax ah for a dog A to behave inuu dhaqmo. It was not an appropriate way ma ahayn hab sax ah for a dog or A to behave oo u dhaqmo. His friends saaxiibadiis in the village ee tuulada always inta badan expect waxay filan jireen the dog A-ga to bite them inuu qaniino. The news about John's dog warka ku saabsan A-ga John ninkii la yiraahdo spread waxa uu ku faafay ama ku baahay the village tuulada. None of the people cidna dadka kamida wanted ma doonayn to go inay aado to John's house guriga John ninkii la yiraahdo sababta ay encourage jooga. John ninkii la yiraahdo tried wuxuu isku dayay to instruct inuu baro the dog A-ga to behave inuu si wanaagsan u dhaqmo, but it never worked. laakiinse ma aysan shaqayn. He tried wuxuu isku dayay to be patient inuu dulqaad u lahaado and teach the dog A-gana baro to be calm inuu noqdo mid degan. A-ga xanaaqana inuu ka ilaaliyo farxadana uu ka ilaaliyo aadka. That also taasina sidoo kale didn't work ma ay shaqayn. John ninkii la yiraahdo did not want ma doonin to punish inuu ciqaabo the dog A-ga. How will I stop my dog's bad habit? Sidee baan stop u joojinayaa my dog's bad habit? Caadada xun ee A-gaygu leeyahay sidee ayaa u joojinayaa? John ninkii la yiraahdo ayaa asked waxa uu weydiiyey himself naftiisa ayuu su'aashaas weydiiyey. Sidee baan caadada xun ee A-gayga u joojiyaa buu naftiisa weydiiyey. John's friend ninkii John yada saaxiibkiis ayaa came wuxuu u yimid to talk to him si uu John ula hadlo about muxuu kala hadlayaa the issue mawduucan oo A-gan qaniyada badan oo inkarta buu kala hadlayaa. During their important meeting intii lagu jiray kulankooda muhiimka ahaa. Intii lagu jiray their important meeting waa kulan, importantina waa muhiima. Intii lagu jiray kulankooda muhiimka ah. During their important meeting intii lagu jiray kulankooda muhiimka ah. His friend saaxiibkiis said wuxuu yiri the people dadka in the village ee xaafada asked me waxa ay weydiisteen to represent them in aan matalo. Dadka xaafada waxa ay weydiisteen ana isoo wakiishan anu dadkaas maanta u hadlayaa way the people in the village dadka tuulada ama xaafada asked me waxa ay weydiisteen to represent them in aan matalo. We want your dog to stop this habit. Waxaan doonaynaa your dog A-gaagu to stop inuu joojiyo this habit caadadan xun. Why don't you put a bell around the dog's neck? ayuu weydiiyey. Why don't you put maxaa ugu xiri weyday a bell gambaleel around the dog's neck? A-ga qoortiisa maxaa ugu xiri weyday? Around marka waa qoorta waa wareegga qoorta macnaha. Qoorta maxaa ugu xiri weyday? Dog's neck waa qoor weeye. Qoorta A-ga maxaa gambaleel ugu xiri weyday buu. Why don't you put maxaa ugu xiri weyday a bell gambaleel around the dog's neck qoorta A-ga? meel kale miyaa gambaleel looga xiri lahaa uriyaa kan fiiri. This way habkan we would hear waxaan maqlanaa your dog A-gaaga oo coming down ku soo socda the street wadada. Jidcadaha A-gaaga soo haya ayaan maqli lahayn macnaha koortiisa. beelkan macnaha wuxuu u dhigmaa koortana dee meel kale lagu xira qoorta lagu xira. A-ga marka wadada ku soo socdo dadku waxay maqlayaan koortiisa dabadeedna meesh waa lagu kala yaacaya waa lagu kala tagaya ilaa haddii kale uu qaniinayaa. Okay, John ninkii la yiraahdo thought wuxuu ku fikiray this was a great idea. Tani inay ahayd fikrad wanaagsan. Now iminka people dadku could stay away from the dog. A-ga way ka fogaan karaan. Stay away waxaa laga wadaa waa ka fogaansho. A-ga way ka fogaan karaan
it would not be able sidoo kale suurtagal uma ahan eyga to bite inuu qaniino anyone cidna qofna inuu qaniino anymore intaa ka badan dadkii hore uu qaniinay dad ka badan maadaama koor lagu xiray awood uma laha sababtoo qof walba koortiisa maqla meesha uu ka yaacaya the dog eygu liked wuxuu jeclaaday the bell koortii ama gambaleelkii wuxuu jeclaaday two sidoo kale sababta dadkii waxay la jeclaadeen inuu gambaleel ku xirto ninkii lahaa wuxuu ka helay fikradiisa sidoo kale the dog eygu liked wuxuu jeclaaday the bell gambaleelka two sidoo kale people dadku looked at him way fiiriyaan when they heard his bell marka ay maqlaan gambaleelkiisa oo soo yeeriya macnaha koorta ku xiran oo soo dhawaaqaysa markay maqlaan ayay waxa weeye fiiriyaan eyga ayay fiiriyaan this made the dog tani eyga waxay ka samaysaa ama ka dhigtay very content mid aad u qanacsan he liked wuxuu jeclaaday the song yani codka ama dhawaaqa the bell gambaleelku played uu daaro when he walked markuu uu socdo dee koortu dhalow bay leedahay dhalowdaas uu ka helay eygu he liked wuxuu jeclaaday the song codka ama waxa weeye dhawaqa the bell gambaleelku played uu daaray when he walked markuu eygu socday one day maalin John's dog John eygiisu strolled waxa uu qonyar u socday through the village xaafadda ayuu qonyar u dhex socday aayar tilaabo dhag baa loo socday and met some other dogs eyay kaluna la kulmay met maxaa laga wadaa la kulmid some other waa kuwa kale weeye xoogaa kale oo eyay ah dogsna waa kusoo sheegay he expected waxa uu ka fishay macnaha uu ka filanayay them eyasha wuxuu ka filanayay 20 a bell like his inay ayagu sidoo kale rabaan gambaleel kiisoo kale ah ayuu ka filayay kor ilaahay amar but laakiinse they laughed at his bell laugh at maxaa laga wadaa waa ku qoslid haddaa rabta qof inaad ku dhahda haygu qoslin maxaa ka wada maxaa see u dhahaysaa don't laugh at me haygu qoslin baa leeda qofku markuu kugu qoslay laugh with waa la qoslid wey laakiin laugh at haddii lagu yidhaahdo waa ku qoslid adaa lagugu qoslaya waa lagula yaabaya but laakiinse they laughed at waxa ay ku qosleen his bell gambaleelkiisay ku qosleen eyga kuma qosliyaan laakiinse gambaleelkii ku qosliyaan waxaan dee yalla waa la fani macnaa they sababta they said waxay dhaheen the bell gambaleelku made people dadka waxa uu ka dhigay avoid him mid eyga ay ka fogaadaan sababta mar walba codkiisa ay maqlaan way ka cararayaan marka eeyadii kala u sheegay waxay leeyihiin the bell gambaleelku made people waxa dadka ka dhigay avoid him mid ka fogaanaya mid ay ka fogaadaan macnaa John's dog eyga John ninka liyad shook waxa uu ruxay shook waxa ka timid shake oo ah ruxid shook marka waxa laga wadaa waa iyadoo bast ah ama fal tagay his head madaxiisa ayuu saa u ruxay madaxiisu waxa uu geeyaha u ruxay okay no maya they look at me way fiiriyaan because they like the bell weird eygi baa faanay kora the dog the other dog said eygi kala wuxuu yiri you have the wrong idea waxaad fikrad qaldan ka haysaa of what makes you popular waxa aan ka dhiga ayaa fikrad qaldan ka haysta of course they like your bell طبعا way jecel yihiin gambaleelka it tells them waxay u sheegtaa waa gambaleelke where you are halka aad joogtid so they can avoid you so daraadeed way ka fogaan karaan way ka carari karaan way iska ka jiri karaan okay you are not able suurtagal macnaha ma awoodid you are not able ma awoodid to bite them anymore intaan ka badan ma qaniin doonto sababta mar walba gambaleelkaaga maqlaan meesha waa lagu kala yaacaya brother you see fiiri you see waad aragtaa wey fiiri wey macnaha qofka waxbaad tusasaa macnaha waxaad rabtaa in attentionkiisa soo sheegto you see waa aragtaa ama fiiri ama eeg baa leeyahay being popular in aan la noqdo is not something positive ma aha wax wanaagsan when it is marka ay ku timaado for the wrong reason sabab khaldan marka caanimada ku timaado ma ahan wax wanaagsan wey sababta bahashan waxa weey niyo caanimada waa meel xun ka gashay you see waa aragtaa ama eeg being popular caanimo in la noqdo macnaha in aan la noqdo is not something positive ma ahan wax wanaagsan when it is marka ay ku timaado for the wrong reason sabab khaldan marka ay ku timaado sheekada waxa weeye intaasan kusoo gabagabeynayna la soco erayada cusub iyo sheekooyinka kale ee la yaab kale ee aan soo wadna haddii ay baydmo haddii aad soo gaartay gabagabadii sheekadan wuxuuna ah ka faa'iiday intii doonaan hala kaadan adna aan ku cusub tahay kanaalka fadlan haddii aad ka heshay contentiga ama waxyaabaha ku jira kanaalkeena inaad subscribe saadhisa oo la socotid sidoo kale gambaleelka furata si aan mar walba aan wax ku soo upload gareyno
ay kugu soo dhacaan. haddii aad nala joogtayna like iyo waxa weeye shared fadlan ha ka baqiinin. commentigana haddii aad faallo qabtid ku soo qor. intaa ayaan kusoo gabagabeynaa casharkeennii. wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. nabad iyo nooli kulanti.